haddii himadaadu ay korayso xataa jidhku hadduu quyuud ku xidhan yahay quyuudda wuu ka furfurmaa himadu hadday korayso bal aan laba mucqad laba qof oo kursi ku dul fadhiyaan tilmaamo falastiin waa maqashaan iyo urur xamaas la yidhaahdo yuhuudda jihaad kula jiro iska dhiciyo dunida wixii bam yaallay lagu garaacayo weli istifaacaya ururkaa ninka sameeyey ee hogaaminayay hagayey korsuu dul saaraa meel dhaqaaqdo jidhkiisii ma jirin markuu wax akhrinayo waraaqda kitaabka qur'aan ee uu akhrinayo inaanu dhalay u rogi jiray maalin bay waxay yidhaahdaan inanku dhalay baa seexday ka gamay si uu rogaa buu garan waayo kitaabkii uu akhrinaya waraaqdiisa carabku isku dayay inuu ku rogo meel dhaqaaqda carab buu leeyahay maca daalik xoogga yuhuudeed buu hor taagan yahay dhakhtarkiisaa yidhi aad baad u tamar darraysa waxaad u baahan tahay na siino dabeetana wuxuu yidhi may masaajidka ha laygeeyo ramadaan bay hedee waa caawa soo jeedayaaba waa cibaadaysanayaa soo jeeday isagoo kursiga lagu sidaa laga soo saaray masaajidka israa'il kaa kursiga lagu siday intay u adkaysan weyday markii masaajidka laga soo saaray ayaa faantannimada cirka mara inta loo soo diraa gantaal lagu dhuftay yacni ninkaasi hammuu siday jidhna intaasu ka yihi itaalkiisu waa carabkaa dhaqdhaqaaqaya caqligana wuu qabaa laakiin isma odhan muqcad baa tahay qof fadhiya baa taan waxba qaban karin isma lehee wuxuu u taagan yahay inuu diintiisa iyo ummaddiisa iyo dadkiisaba xoreeyo ummad dhan buu u ahaa maxay hoggaan ruuxiya oo hoggaaminaya xarakaad dhan oo jihaad iyo isdifaac iyo wax iska rabaya dowlado dhan oo dunida waaweyn baa u adkaysan karila ninkaasi aan waxba qaban karin ee kursiga lagu jiidayo ayay u adkaysan kari waaye